Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Saaxiibayaal iyo dhammaan dhagaystayaal ku soo dhawaada sheekadii aad wada sugayseen ee saaxiib surgooyo iyo jacayl siraysan. sheekadan oo ka turjumaysa dhowr qiso oo dhab ah ayaa dhab ahaantii waxaa dhexda u xirtay dhallinyaro fara badan si ay dhegihiinna ula qaybsadaan dhacdaday arkeen la kulmeen ama looga sheekeeyey. saaxiib surgooyo iyo jacayl siraysan waa magaca sheekadan, manahan micno dhow oo dhambaal ayuu dirayaa. waa tii hore loo yidhi dhagax meel dhow ayuu ku dhacaa, dhawaaqna meel dheer. sidaa darteed magacan waxa uu xambaarsan yahay kumanaan qof dareenkooda iyo hagardaamada ay la kulmeen. sheekadan markii laga soo tago magaceeda guud oo ah saaxiib surgooyo iyo jacayl siraysan, waxay ka kooban tahay 2 qiso oo mid walba magaceeda wadata iyo hannaankooda. qisada koowaad waxaa lagu magacaabaa saaxiibtii sunta ii walaaqday silic ma u dambeeyey. qisadan waxaa goobjoog u ahayd oo soo aruurisay isla markaana iska leh maariya maxamuud cabdulqaadir maariyamaanka. qisada labaad waxaa lagu magacaabaa damcalow daminkuu ku jiraa. qisadana waxaa u kuurgalay kana soo dhegadhegeeyey dadka ay ku dhacday cabdikarin aalos. hannaanka sheekada iyana waxaa lagu magacaabaa askarigii isxilqaamay, waxaana iska kaashaday mahad maxamed nuur mahad macruuf iyo libaan axmed ciise abwaanka. guud ahaan sheekadan saaxiib surgooyo iyo jacayl siraysan waxaa idiin qoray idinlana socodsiinayaa anigoo ah cabdinaasir axmed xasan cabdinaasir xiirey amase fantastic. haddaba dhegaystayaal, qaybtii 6aad ee sheekada waxay noo joogtay. ninkan ujeed waa aabahey waan ku keenay magaciisuna waa kabtan holofolof barasho wanaagsan. marka aabe gabadh waatan ila soo dhaweey waryaare gabadhan madii faadimo igu sheegaysama waraa fiir ord qolkaas waxay iga soo qabataa busti wixii ii soo qaba dhaxan baa jirtay macnaa gaalka ay dhaxantaan kula yaabay ord sac adag isgaadgaad ma bilaabay faadimo allahay xariima allahay sheekadaas ma keeraba war ha wada hadlina kaliya xaatoos noo ka bartay sawiriya dara ka badati waa soo qabanaya aabe in alla hadashan jeclahay waa kana dabcan waana ku keenay. ana la warramay gabadha waa arki waa fiican tahay, nin fiican tahay ma aragtay wiil nin dhan asdali kabtan holofolof inis meel xun ka soo baxay loo maleynay orod marka busada ii keenay dhaxana idilaalaysa waxa way orod dhaxantan gaalkacay dhaxanteeda manacay ya yarta macna gabadha narta faadimo la dhijirto ana igu kan keenay feeri adiga walaasha mid kaayir ma jirto mid ka weyn jirto inta waa jiraan adeer macaan. tuku eg ma jirtaa tuku eg oo goon kugu eg ma jirtaa may feeri macnaha adi horta waxaan u maleynayaa inay is aragna gabadha nambarka isiinaysi oo faadimo eed matiido may adeer macaan wax faadimo la yiraahdo ma aqaan wulin faadimo lama bixin nambarka sheegaysi muxuu yahay bal soo wac bal anig nambarkayga waa kana taleefankayga waa kana bal soo wac hadii anig nambarku siiyay waa arkaynaa. wallahi feeri gabadhan qardada ay dhiibti ana og feeri waa fashil ma doonta hadday fashil ma hadaan fashil minaan ku eri alla ilaahay maradan ku jiro nambar kuma jiraan ku sugadi hadaan wacay waa fashil ma fiirsan soo qaban nambarka waa wacay sugban nambarka ka mehnino kale okay aan ku dhe okay. hello aabe waa soo wadaa busti waa soo wadaa aabe jur tag bid alwir kaadini jaas waaxid. haatanna ku soo dhawaada qaybtii 7aad ee sheekadii saaxiib surgooyo iyo jacayl siraysan. taraafika diga khabarimiya ya waryaa anoo kabtan holofolof gabarta ay gaadi waryaa feeri anoo kabtan isay liigu gaadi laakiin kabtan la gaadaa wiilkiina ma aragteen yaa waa gaadi wiilkayga nambarkiisa isiisa ka waranaya dabdaradeed
aabe busti waa kana busti waa kana ها يصيب بني ودحنتو هاسي لهاد اوغا لهاد وايا بلاد ها ما شاء الله هرت قبرت والا شكاستي قبر في عن واي وما شاء الله كالي ارق نع والبيك في عنت مغلي ما شاء الله واي قبرتان waxaan ku eri waxa way soo dhaway si fiican soo dhaway nin fiican naqo waana ka tagay هاي ابا معن هاي ما شاء الله ابي waxa way saaxiibtii ducaan uu amaanay ma qaan waxay u sheegtay ducaan waa qan isaa umaleynaya si wanaagsan oo la hadashay waa farxad gelinaysa inuu aabi amaano ducaan gabadhii aan isjeclayn oo waqti aan qaadanaynay dabcan nolosheedana rabo inaan ka dhigto abaa shukri iyo waran bal tuqa meesa afgarateen misla hadasheen muxuu ku dhahay tuqa maxaa kala kulantay caqabada haa maasha allah aabbaha wallaahi waa aabbo kaftan badan oo sheeko badan aad iyo aad waa isfahanna waa sheekaysanay aye bal adiga sheekadaada ii dhiman bal halkii kasii wad bal sheekada waa sax waa fiicanahay dee halkeedina way ka soconaysaa abuu hooya isoo waceyso waa kaas ah waa sii daahsanaa waxaan rajeynaa inaan kaasii tago wallaahi aad aagu xumaay gabadhii dhan oo waqti yar inaa la qaato oo ii imaatay nigoo aabe intuu bustaha aan ku maqnaay waqti badan iga khasaaraya maxaan sameeyaa waa fasaxaya kule marka la ka badan nolosheedii marka la ka badan la kulmaya dabcan runtii aad ay xiisi gelinaysaa gabadhan waana jeclaaday dareen caashiq ay ugu abuurtay ayadana waxay leedahay aad baa u daahsanaa meelay u socotaa marka waxaad moodaa in waqtiga aad iigu kooban yahay iigu yaryahay maxaan sameeyaa inaan fasaxaya noqonaysaa abaayo shukriye wallaahi waa jeclaan lahaa horta inay ila sii joogto oo waqti fiican oo badan qaadano laakiin wax walba waxaa ka weyn amarka waalidka ka weyn marka hooy macaanta haday kusoo wacayso ma raba inaan kula gooyo qaali marka orod xaafadaadi aad xaafadi tag waa issoo wacaynaa waan iska warhaynaynaa qaali anaa wixiisa qabo in sheekadaada iyo agjoogaaga iska jecel laakiinse waqtiga aad ii kulaalaya dhib ma lahan oo isla joognaa qalbiyada ka midaysannahay ka kheyr badan aan kuu rajeynaa insha allah isballansigii iyo isku imaanshihii shukri iyo dejiye sida ay rabeen ogama bogan oo waxaa waqtiga ka lunshay soona dhex galay kabtan holof oo ah aabbaha dhalay dejiye kabtan holof ceeb ayaa ka raacday gabadhii bilo ka hor uu lambarka ka soo qortay waxay noqotay wiilkiisa saaxiibadiisa dhibkana waxa uu ka yimid maalintii lambarka uu qortay ma uusan wicin sidaa daraaddeed waxa uu soo xasuustay markuu gabadha arkay balse shukri waxay iska dhigtay qof aan weli arag sidaasna way uga badbaaday dhinaca kale nibco maxaa u dambeeyey waa tii laga soo gudbiyey ceebo fara badan oo aysan lahayn waa qof daacada welina ma dareemin inay luqaafa jirto oo saadaq ayaa meermeer iyo inuu la kulmi waayo teleefoonka ka qaban waayo hadduu ka qabtana si fiican ula hadli waayo ku bilaabay nimco oo dhafakaarsan oo dhibaata haysato saadaqna uu ku dheeldheelayo ayaa sidaan tiri horta xaqiiqda ayaan taa ninkii saadaq ahaa jaceylka naga dhexeeyey gaabsiyaa ka dareemaa marka in badanaa wacay ebel hadduu wicitaankii arka way soo wici jiray laakiin hadda lambarkeyga arkaa marsiido ii taabanaya ma aqaan fariinta u dirma iiga soo jawaabayo marka inaa haddeer waca waaye hadduu iga qabanaya in kale lambarkiisa waa dhacaya ma qabanayo ma aqaano waxa ku dhacay lambarka aad wacday waa mashquul fadlan soo wac mar kale waaba igu mashquulinayo ninka waaweenkuu noqday warqaftaan maanta maxay igu soo celcelinay taleefanka maba iga nasanaysabe bal ukaadib ma markaan aan ka qabtee halow waa ilaah maad soo qabtay war saadaq saa tahay gacaliye waa fiicanahay oo xaaladaada ka waran xabiibi ayaanta maxaa kugu dhacay miyaa mashquulshay maxaa ku helay waxba oo maxaa ka khaldan marka la hadla waxba oo asiga hadalka oo maxaa kugu dhacay waa anagii wanaagiyo maxaa la dhahaaye hadalla macaan isaga baranay wax kasta waxba oo saadaqo inta wax ku weydiiyo ayaantan kulankaaga ma hayo lambarada ka soo wax miga qabanaysid maxaa qaldanna dadka bini'aadamka waa isqaban karaan oo qaladna ay ka tabanaysaa maxaa jira adoo iskaro oo maxaa isgartaa oo maxaa ku mashquulshay wax wada qaban jirto markaan mashquulshay geli jirta xitaa waa adiga iisoo sheegi jiray maxay taa waxa isbedel saadaqo waxba isma bedelin oo heer aan sida ii taabta ma la gaaraba adduunyo xalkida wax walba la arkaa nibco waxaa saameeyey oo soo gaaray dagaalkii safiyo iyaduse ma oga halka ay sartu ka qoransan tahay oo waa maskiin ilaahay waxaa ka maqan dareenka shakiga iyo inay daba gasho halka ay wax ka qaldan yihiin
nibco candhuufteeda gadaal ayay u laqday ogaatayna inuu qof doorsi jiro laakiin marnaba kama shakin saaxiibaddeeda safiyo oo waxay istidhi saadaqayaba markii hore been kuu sheegayey oo aan jacayl kuu qabin dhanka kale saamiyo waa gabar ka yar shukri lana dhalatay mar ay ka soo socotay meel ay dana u aaday ayay soo raacday BL amase bas si ay gurigeeda ugu soo dhowaato saamiyo waa inan muuqaal ahaanna ka weyn walaasheeda shukri oo qofkan dhalashadooda ogayn marnaba isma dhahayo shukri ayaa weyn maxaa yeelay saamiyo waa laba lafood laakiin qurux aan ku dhammayn walaasheeda shukri saamiya meeshii ay rabtay markuu gaariga ku soo dhoweeyey ayay ku tidhi darawalkii kirishbooygiina yidhi joojowriga gaari waa kaa degayaaye jooj soo dega كان لعاها سوق qabta الله سيقبل بورصة لعقتي أنا قصة بحي الله لعقتي بورصة يقوم جرتي حتى تلافك العقد يقوم جرتي ولا لو لعقتي واي قصة عدم في لا تلافك العقد يقوم جرتي بس وحيلا حاسم اللي قاعد يجي لعقتي سوق أفركم ولا لعاها سوق qabta هذا ولا لو ما هاي محسمة واي لعقتي تلافك يقوم جرتو تلافك قف الدواء على العقد يقوم جرتو lacag boorsadan lacaga ku ogaa boorsadan lacag igu mtirtay sidee wax yeelaa waa qaana gabdhaha gaari ku soo raaca boojada kan lacag soo qabto mariga yeelay maanta markuu si dinay kan lacag soo qabo walaal sidee dharka igu dhigan horta meeshan magaalo waaye dharka igu dhigan tartiib lacag aniga ma hayo dhay mana hayo lacag kushin lacag ma hayani idil ama wax harta igu sameey kun lacag ma hayani iisib xijaabka lacagta u qaadanaya asaga lacagta u qaadan karaa iisib xijaabkan oo maxay tahay ninkan gabadha ku dhakan oo leh kan xijaabkii wuxuu sheegay maxay tahay war كفو قبرتها إذا بنهيده war maxay u dilaysaa saqajaan wuxuu ka indhaha xul maxay u dilaysaa gabadha aan lacag ku leeyahay lacagta ka rabay war aamus idib bilid saqajaan ma gabar saacadan joogto Soomaaliyeed qaqabanaysa markaas ku dhigaysaa maxaad ka rabtaa gabadhan lacag ku leeyahay lacagtii gaari ku soo raacday ayay wafta inay boocho marka lacagta adiga ka bixinay maxaa karta uu soo qeylin adiga gabadha ka jira idib xumaa wuxuu lacag baa ku leeyahay ma gabar baad kuleetiga lacag uga qabanaysaa u jiidaysaa wariya maxaad ku leedahay sheeg lacagtaad ku leedahay gabadha lacag ku leeyahay anagu gabar jixin waxaas ma naqaadanahay kirshu lacagtana karna lacagta ma naga sinaysaa adiga meeqa kunaad ku leedahay gabadha 4 kun ku leeyahay ho 4 kun mar dambana gabar islaameed oo Soomaaliyeed oo riyaa adigoo qaqabanayo mar dambe hadii aan ku arko adiga mas'uulka idib milid akhlaaq yar riyaa misaas loo shaqeystaa laftirkaada idib milid ma gabdhaha dhanba adigu waardiye ka taa ama wakiil ka taa maxaa kaga jira gabdhaha riyaa akhlaaq ma leeyahay gabar adiga ku dhalatay oo saan la yeelay anigu ma fiirsadeen idab yeelo gabadha waa walaasha oo kale riyaa ma 4 kun oo shil Soomaaliyeed gabadha u jiidaysaa akhlaaq inaad yeelataa loo baahan yahay si fiican u shaqeyso idab iyo waxaas ma aqaan lacagteeda aqaanaa lacagtii mar hadda helay bas soy الله والله بلا ما انت لا ويل كان aad u wanaagsan yahay wallahi aan ku shin lacag aan hinin taleefik lacag ay isugu jirin taleefik lacagtii boorsada igu jirtana iga dhacda meel iga dhacdana aqoonin wallahi wiilkan waxa ila tahay wiil wanaagsan inuu yahay waad inaan la hadlaa aan dhaha wallahi inaan u mahad celi waaye kariibuygaas oo igu dhignaa oo iga fujiyay walaalo marka ugu horeyso waa maasan tahay adaa mudan abay aad oo maasan tahay waxa way waxaan wax laga xishoodo way dabcan in adoo gabar Soomaaliyeed oo gaari soo raac gaariga markaad ka degatay dabcan lagu jiijiido oo lacag 4 kun oo shilin Soomaaliya markaad gaariga soo raacay ismiyada lacag wadan walaal maxaa see wax ka yihiin maxaa ka qaldamay walaal lacag waan watay laakiin boorsadii aan lacagtii ina galiyo aan u leeyahay lacagtii waan soo saraftay lacagtii ina boorso galiyo u leeyahay laakiin boorsada hadii waan ka waayay inay iga dhacdaan filayaa lacagtii inay gaari ku dhacday inay banaanka igu soo dhacday lagu ma garanay laakiin lacag waan watay hor marka gaari soo raacay ay hadii malahan way dhacdaa kale hadda kadibna waxa la rabaa inaad wax hubsato waxaadan dabcan aad wadan meel isku beel dareen hana aadin waqtina gelin dabcan haddana wax tabanayso gooniya ma jiraan dabcan sidii muuqato goobteed uga digireed gaarigana waa joogtaa marka walaalo aad baad u mahadsan tahay inaad ii mahad celiso maahan maxaa yeelay ani hadda wax gooniya aan ku sameeyay ama aan ku qabto ma lahan intaasi in ka badan oo adiga mudan tahay gabar walaashay Soomaaliyeed ayaa tahay aad baad u mahadsan tahay xaafadaadana waad aadi kartaa walaalo aadaama walaalkii xaafadeeda waan siiyay hadda waa sii soconayay halkaas inacaas iyo wadadaas ma maraysaa luqaasi ها wadada hortaas aan socdaa horteena ah halkaas ayaan rabaa inaan gaaro jireera magacaada ii sheeg bal aniga waxa la yiraahdaa Cabdi Shakuur dabcan wiilasha Soomaaliyeed waan kamid ah
anina sidoo kale barasho wanaagsan saamiyaa leedhahaa yaaway maxaanka yaaway adiga kula yaaway maasha allah saamiyo magac aad u qurux badan weeye dabcan waana magac idee qaba saamiyo iyo salaam magacaan lama silin karo maarag waayahay waxaad ii sheegtaa saamiyo number iyo meel gaala soo xiriir haddii ay jiraan dabcan kalama foginoo dee gaariga meeshaan oga hara adigana oga hartayo deriska ayaa taan umaleynayaa marka xiriirka aan sii joogtayno isla sii xiriirna sooma qurux badnaan leeyahay saamiyo aad iyo aad cabshakuur aada ugu faraxsanaya aad wiil adoo kaleeto wiil wanaagsan inaa barto lambarkii waa kaasaa waa i soo wici kartaa yarta maluu haayaa yaray maluu haayaa adiga maluu haayaa jaceelka maku haayaa yarta maluu haayaa yaray maluu haayaa adiga maluu haayaa jaceelka maku haayaa aada umaasantaa walaal aada umaasantaa maasha allah gabadha lambar qurux badan ayay wadataa magac qurux badan ayay wadataa laakiin si aan isku baranay si wanaagsan ma ahayn dabcan ayadoo lagu dhegayaan la jijiiday ayaan bartay talow ma khiyaanadeeda badan mise waxbay si ka noqday maanta kulli waa kasal gaari doonaa waan raad raaci doonaa si fiican aan u sheekeysanaynaa saamiyo aad ayaad umahadsan tahay halkaan kaaga hari lahaa ayaa la joogaa walaalo waana ku faraxsanaa dabcan inaan isbarano waan isla soo xiriiraynaa waa mahadsan tahay saamiyo insha allah abu hay waa anigu ku faraxsan inaan ku barto wiil adoo kato wanaagsan inaan barto insha allah waa isoo xiriir doona isoo wici doona insha allah barasho wanaagsan cabdishakuur qof kale maaha waa dejiye waa xarfaan magacyada u kala beddeshaa gabdhaha dejiye waxa uu xiriir kala dhexeeyaa shukri oo ah saamiye walaasheeda haatanna waxa uu magac beena u qoray saamiya waan arki doonaa waxa uu sameeyo iyo waxa uu ka damacsan yahay saamiya hase yeeshee shukri waxay u begi weysay dabeecadaha saaxiibaddeeda nibco oo ay ku ogeyd furfurnaansho iyo dabacsanaan shukri lama socoto waxaa safiyo ay samaysay iyo waxa ay ku sugan tahay nibco laakiinse si ay xog u soo ogaato waxay gurigeeda ugu tagtay nibco wallaahi bilaahi maalmahan gabadhi saaxiibaday ahayd waa ka yaabana nimco ayadoo dhan sibay u maqan tahay oo way fiigfiigsan tahay farxaddii iyo furfurnaantii ma lahan ma aqaan wallaahi see wax u jiraan naa nimcooy saaxiib shukri see tahay fiicana saaxiib see tahay adiga saaxiib waa iska fiicana niye mana fiicni wallaahi ma aqaano xaaladdeeda meela marayso saaxiibey waa dareema wallaahi in wax un kaa khaldan yihiin bal iga dabageebal maxaasaan kuu bedelay aawa farxadaadii aawa qosolkaagii furfurnaantaadii firfircoonidaadii aawa saaxiib macaan wallaahi saaxiibey farxadeeda nin baa la tegay oo ujeedaa inaan anigu dhansi kale ahayo madoobaaday kurbo adduunya waxaan ku idhi meelaan joogay meel kale maba garanayo saaxiib wiilka saadaqa ahaa dee dabeecado kala duwanaan ku arkaya lambarka hadaawac xitaa saaxiib igama qabto maroo igu jaro hadaawaca wanaagii naga dhexeeyo lama hadlo wuxuu leeyahay waa mashquulay iyo baleyn kale naf jacayl galana waa taqaanaa dee hadda kurbo adduunya meelaan la fadhin ma aqaano saaxiib waxaa sameeyo aduu maxay la talin lahayd saaxiib maya saaxiib waxaa samaysa intaana kuu sheegin ka hor horta saaxiib saadaq soomaha ninkaa ka sheeganaysa saadaq waa nin wanaagsan aan ku barto ku ogaa maxaa kaa qaldan saaxiibe see wax u jiraan intay wax ka qaldan yihiin bal ii sheeg shukriya walahi anaaba isla yaaban misdheheynin saadaqa telefoonka ugu daminaya miska ugu dhageysanaya fariinaa 3 habeen ka hor u dir xitaa miisoo jawaabaya anaaba yaaban saaxiib waxa ka qaldana ma aqaano maxaa ila talin saaxiib kurbaa la jiifa anigu saaxiibe wallaahi waxa kula taliya horta maxme bal ii sheeg xiriirkii niiga dhexeeyay iyo sheekadiinii qof aan aniga ahayn oo u sheegtay ma jiro oo asxaab kale ah ugu sheekaysa ha saaxiibey jirtaa saaxiibteena Safiya u sheegay maadaama aynu naag 3 gabdhood isku dhaarto waxa isdhaha hadaa ka qariso ayadan si kale nii fahamta ayadan umaleema inay waxaas camal sameynayso laakiin labadiina aan sheeg waa igu kalsoonaa soo maaha saaxiib horta qalad weyn aa gashay aniga sidaan kuu sheegay waanadeeda qof u sheegin aan ku dhahay dabcan saaxiibteen waa qoftaas wax walba waa la wadaagayaa balse jaceelka ma wanaagsan in qof walba loo sheego waa ka xumaa runtii saaxiib wax kugu dhacay bal xogtan aniga dabageli doono oo se wax u jiraan meeshay wax ka khaldan yihiin intaba anaa kuu soo ogaan doono saaxiib isdeji qalbiga khayr u sheeg walwalka badan iyo murugada iska dhaaf seexo farxadaadina dib u soo celi saaxiib aniga wax walba ku soo xalin doona insha Allah okay saaxiib wixii akhbaarada ka sugaa insha Allah hadna xaafada si tagaya ay saaxiib khayr badan ku rajeena shukri waxay dareentay inuu dhibka uu ka yimid sheeg badnaa ee nibcay ku samaysay jacaylkeeda
shakina waxay ka qaaday safiyo inay arrinkan oo dhan ka dambayso balse ma degdegin booqasho caadiya ayay ugu tagtay saaxiibadeeda shukri iyadoo xog baaris ku jirta shukri oo saaxiibadeeda waad soo booqatay saake soo dhawow bal soo dhawowde sidee tahay saaxiib safiyo aada u wanaagsanahay maasha allah waan ku soo booqday sidaa ujeedid waan wanaagsanahay saaxiib see tahay bal adiga ii waran maalmahan waa kuwaay ima soo booqanin ima soo wicin bal waxaan isdhahay saaxiibtaada bal ka war doona bal ii waran saaxiib macaan aad iyo aad baan kuugu wanaagsanahay saaxiib ayaa maanta guriga unbaan iska joogay waana bixbixina saaxiib sidaaba kusoo raadin waaye dee ii waran bal maxaa iga dambeeyey saaxiibe safiyo wallaahi waxaan ahaay ma lahan meeshaana kuu baashaala saaxiibe waa la iswaayay dad asxaabo iska warhaayo hadda israadiyo issoo booqdo isku imaada ahaan jirne saaxiibe maxay tahay maalmahan guriga ku dhegtayoo laguma arag loonamana soo booqanine bal iga dabagey bal adigan kuu imida bal ii sheekee bal saaxiib waan kuu yaro fiican oo meeshaan baan iska joogada guriga maan soo dhaafin marka dee wax dhiba muu jiro waan kuu fiicanahay halkan unbaan iska garaadsadan iska nasto marka wax kale may jiraan saaxiib miyay dhankiina wax ka jiraan saaxiib maya saaxiib caadi bal biyaha u baahnaay bal biyimaa ii keenta saaxiib biyo qabo oo soor saaxiib kumankiina marka hore iminkan kuu doonayaa haa taleefonkeeda waa kana intay biyaha ku maqan tahay waa inaan baarbaaraa intaas haynoo joogto qaybta 7 ee sheekadii saaxiib surgooyo iyo jacayl siraysan la socda qaybta 8 ee sheekadan waa cabdinaasir axmed xasan cabdinaasir xiire ama si fantastic oo idinkaga tagaya isma dhaafno